بسم الله الرحمن الرحيم أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي قالي كحنا قروح دمر سو دواada kusoo dhawaada gacmo furan asxaabta cusub way mahadsan yihiin asxaabta hore noola joogtan sidoo kale way mahadsan yihiin insha Allah maanta waxaan idin wadaa topic qurxin oo aad u faa'iido badan kaasoo ku saabsan sida caloosha loo jaro sidaad caloosha isaga jar lahayd 7 maalin oo kaliya ama hal isbuuc haddaba uma baahnid inaad exercise sameysid ama inaad diet gashid kaliya waa waxyaalo kooban oo qof walba jikadiisa ka heli karo ka faa'iideyso wacan insha Allah waxyaalahan aan sheegi doono waxaa la cunayaa oo kaliya waqtiga quraacda ah ama qofka subaxdii markuu soo kaco ayuu ku afbilaabanayaa ka faa'iideyso wacan insha Allah la socdo step by step asxaabteyda qaaliga asaa idinkugu sharxi doono kaga bogasho wacan haddaba maxaa u baahan tahay marka koobaad waxaa u baahan tahay hal xabo karootada dhexdhexaad inay ahaato waa oo qiyaas ah kadib waxaa u jarjareysaa si warwareeg ah oo qaab yar yar ayaa u jarjareysaa then markaa jarjarato waxaa ku shubanaysaa weel waxaa kaleeto u baahan tahay jab yar oo qajaar ah jab qajaar markaa soo qaadato asagana waxaa u jarjareysaa qaab wareeg ah waxaa ku dareysaa karootadii waa jarjaratay oo kaliya sidoo kalena qajaarka waa jarjaratay weel ayaa ku ridatay waxaa kaleeto u baahan tahay sanjabiisha budada looma baahno sanjabiisha qoyan ayaa loo baahan yahay iyadana jab yar ayaa soo qaadanaysaa waa jarjareysaa sanjabiisha miska badinaysid jab yar ayaa soo qaadanaysaa then waa jarjareysaa waa ku dareysaa waxaa kaleeto ku dareysaa jab tufaaxa 4 qayb ayaa u qaybinaysaa hal qayb oo ka mid ah ayaa ku dareysaa waa jarjareysaa asne 4taas shay markaa isku jarjarto waxaa soo qaadanaysaa makiinad wax lagu shiido qalaadada then waa shiidaysaa markaad isku shiido soo qaado koob ama galaas ama waxa wax ku cabi lahayd then caanamir soo qaada iska miir marka intaas isku qasato oo isku miirato waxaa ku darsanaysaa liin dhanaan hal qaando biyaheed oo liin dhanaan yacni jeex liin dhanaan ayaad qaando ku miiraysaa then hal qaando inaad ku cabirato ayaa loo baahan yahay sidoo kale waxaa ku darsanaysaa hal qaando oo malab ah kadib waxaa ku walaaqanaysaa waxyaalihii aad soo shiidatay oo galaaska kuugu jiray si fiican markaa isku dhex geliso oo isku dhex walaaqdo waa cabaysaa subaxdii markaad soo kacdo afbilaaw ayaa ka dhiganaysaa insha Allah saan haddaad sameyso muddo dhan 7 maalin baruurta caloosha ayay kaa jaraysaa calooshaadan waxay noqon doontaa calool baruurta ay ka jarmatay waxaa kaloo loo baahan yahay waxyaalaha sokorta leh inaad joojisid insha Allah marka intaan aad sameynayso waxyaalaha sokorta leh iska jooji waa mahadsantihiin walaalahayga qaaliga إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.